Audio Jungle. السلام عليكم. fariinta maanta waxa weeye in aanad raacin dhanka loo badan yahay ee aad raacdo dhanka saxda ah. inta badan waxayna khalda oo aan ku lugo'naa dad badan baa sameeyay darteed inaan wax u samayno iyo dad badan baa u arkaa inay sax tahay inaan wax u samayno. xaqiiqdu waxa weeye waxa saxda ah inta badan dadku ma raacaan. waxaan u badannahay in dhinaca fudud iyo shortcutska iyo dhinaca sahlan iyo waxa la qaban karo iyo waxa caadiga aynu badankeenu qabano. tirada yar ee ku dhiirata inay ku dhacdo qabashada waxa laga cabsoodo, tirada yar ee ku dhacda ee leh dhiiranaanta ay ku wajahaan waxyaabaha laga baqo in la wajaho ayaa dhabtii gaadha darajooyinka sare ee nolosha. nin macallin oo ah wuxuu odhan jiray, it's lonely at the top but you eat better. xagga sare ee nolosha, darajooyinka sare ee noloshu waa cidla inta badan, dad badani ma joogaan. sababtuna waxa weeye because halkaa tegiddeeda adag, halkaa tegiddeeda shaqo iyo tacab iyo daal adag u baahan, halkaa tegiddeeda qiimo adag baa ku xidhan. waxaana keliya tagaa dadka bixiya qiimaha. nolosha qaybaheega hoose waa buuq, meelaheega hoose waa buuq. dadkaa u badan inay meelaha hoose nolosha u maleeyaan inay meesha caadiga ee ay karaan tahay, because marar badan mashaakilaadka iyo caqabadaha nolosha inaga soo wajahayaa waxay inaga xanibaan inaan aragno waxay noo suuragalka, waxay inaga xanibaan inaan dhadhamino karaankeenna, waxay inaga xanibaan inaan potentialkeena iyo kartideenna wax inaga dhigi karta ama waxaan rabnay ina gaadhsiin karta inaan arki weyno. taasaa sababtay in lagu qanco waxyaabaha caadiga iyo meelaha caadiga iyo goobada aan la qabsanay, dadkaan la qabsanay, meelahaan la qabsanay iyo waxaan la qabsanay. war nolosha qaybaheega sare way haawanaysaa oo dad badani ma joogaan. sababta dad yar oo tiro yari u guulaystaan oo natiijooyin macnale u gaadhaan wax kale ma aha, waayo waxay ogolaadeen inay bixiyaan qiimaha dhabta ah ee darajooyinka sare ee nolosha lagu gaadho. badankeenuna qiimaha ma bixino. haddii inuun ay kaa go-an tahay inaad qof qiimale noqoto, waxa qalbigaaga ku weyn aad u dhowaato, waxa maskaxdaadu ku hamiyeysana aad gaadho, bixi qiimaha waxaa. qiimaha waxaa bixinteedana waxa ugu horeysa inaad 100% waxay kaaga baahan tahay siiso. weliba waxa aad raadinayso ogow waxa raadinaya 1000 qof oo kale, ugu badnaan 1000 qof oo ugu yaraan 1000 qof oo kale oo kaa agdhow baa raadinaya. laga yaabaa inay kaa resource badan yihiin, laga yaabaa inay kaa fursado badan yihiin, si ka taageero badan yihiin oo ay u fududahay inay gaaraan meelaha qaar. laakiin ogow mar walba tallaabooyinka aad u baahan tahay inaad qaado iyo qiimaha aad laga rabo inaad bixiso oo ay kaa rabto meeshaad u socotaa, ila garo qiimaha una go'aamina, qiimaha wax ka sareeya bixi si qiimaha keenideedu ay kuugu fududaato. war haddii dayaxa ay tahay gaadhidaada, hamigaagu dayaxa gaadhidiisa yahay, waxa la qabsadaa cadeeda si dayaxa gaadhidiisu ay u noqoto wax optionka labaada oo markaa ta koowaad samayn kari weyda aad ku soo dhacdo. marka horeba adigoo dayaxa ku hamiyay haddaad xidigaha sii qabsato, xidigaha meel ka hooseeyaad ku dhacaysaa. nolosha inaan wax ka noqono oon gaadhno natiijooyin macno leh oo aan gaadhno meelaha qalbigeenna ku weyn, waxay u baahan tahay keliya inaan qiimaheega bixino. qiimahaasina waxa ugu weyn aad bixinaysaa waxa weeyaan naftaada iyo waqtigaaga iyo hamigaaga iyo fikirkaaga inaad meel isugu geyso ood baashaa dhex mariso. of course waa suuragal inaad wax noqoto, inaad hamigaaga gaadho, because wax kastoo lagu hamiyey waa la gaadhay. dee cid libinta kaa xigtaa ma jiro, cid kaa xigta libintu ma jirto. sacabna sacabkaaga kaagama horeeyo. aamin inay waxaasi suuragal yihiin. qiimaheegana bixi. meelaha hoose buuqaana ka kac, meelaha sare ee cidlada laakiin lagu raaxaystee nolosha teeda sare ah ee darajooyinka sare qoorta loo suro dadka gaadha. laakiin dad badan aanay joogin. meesha qiimaheega bixi. You will eat better and you will sleep better. Somali Inspiration.